marmarka qaar waxaa dhacda inaynu shay ku guuldarraysano oo saynu doonayno ay wax u dhici waayaan balse noloshan aynu nool lahay intaynu caafimaad qabno waqtina aynu haysanno waynu ka soo kabsan karnaa waxyaabihii inagu dhacayna ku khasaarnay waqti kalena waynu samayn karnaa balse waxaa jira marka aad talax gabto ee da' noqoto amba xanuun kugu yimaado inaad fursad u weydo waxyaabo badan inaad saxdo taasi oo ay ku dhaboobayso maahmaahda carbeed ee ahayd alwaqtu kasayf in lam taqdachu yaqdacuka waqtigu waa sida seefta oo kale haddaad jari weyda saa ku jaraya kusoo dhawaada muuqaal kooban oo aynu kaga hadli doono arrinta khusaysa oo xadhig kala dhexeeyo waxaynu ka hadli doonaa shayo saddex ah oo qofku markuu geerida salaankeeda saaran yahay amba markuu sariirta geerida saaran yahay uu talax gabo ama waqtigu ka tago oo ka qoomameeyo inuu soo sixi waayo oo qofku ka walwalo maxaad markaad waqtiga haysatay aad waxyaabahaasi dhanka fiican aad ugu kaxayn weyday oo u hagaajin weyday qodobka ugu horeeya waxa weeye inaad ka soo fikiri jirtay oo aad waqti badan ku lumin jirtay sida ay dadka kale ku arkaan taasi oo xaqiiqatan ah arrin khaldan oo ay marnaba noloshaada wax wanaaga iyo guul aan u horseedin oo macnaheedu tahay qofka bini'aadankii ra'yi gooni ayuu leeyahay qof walba nolosha ku noolna ra'yi gooni uu leeyahay lagama yaabo si aad rabto qof kasta inuu ku arko waa lagu mucaaradi waa lagu nici nolosha aad ku nooshahayna waa laga xumaani ha isku dayin inaad mar walba ka fikirto sida ay dadku ku arkaan samee wixii kula saxan ilaahay tala saaro guushana u dadaal waad gaadhiye balse haddii caqabad kugu noqoto inaad shay bilowdo oo aad ka fikirto dadku talo maxay noqon doonaa feedbackooda amba falcelinta ka iman doontaa dadka maxay noqon doontaa haddii dhaqamada aad yeelato waxaa xaqiiq iyo hubaal ah inaad cagta saartay hilinkii hoogay gurdarrada haddaba qodobka ugu horeeya wuxuu noqonayaa sidaynu sheegnay qofku marka uu geerida saaran yahay salaankeeda amba markuu gaboobo oo uu talax gabo waxyaabaha uu ka walwalo waxaa ka mid ah oo ugu horeeya in uu waqti ku soo lumiyey inuu ka fikiro sida ay dadku u arkaan qodobka labaad inaad cabiri kari weydo fikirkaaga iyo aragtiyaashaada iyo afkaarta gudahaada ku jirta oo marmarka qaarkood cuqdad nafeed kugu ridaysa instead wax u aragto aad cabiri kari weydo adigoo ixtiraamaya dareenka dadka kale oo macnaheedu tahay shay aad xaq u lahayd inaad qariso ama aad ka tanaasusho adoo qof kale uga tanaasulaya adigoo leh qofkaasi haddaad ra'yigaada cabirto amba aad sida aad wax u aragto sheegto bilo ka xumaada arrintaasi oo markaad geeriyoonayso amba marka waqtigu ka tago qoomameyn fara badan inaad fad dhexda ka qaniinto kugu keenaysa ka digtoono weligaa intaad waqti haysato inaad ku lumiso qof kale raaligelintii waa kii hore loo yidhi rida annaasi gaayatun laa tudrak raaligelinta dadku waa yool aan la gaadhin weligii waa ceel aad qodayso balse aan la ogeyn meeshu ku dhammaanayo iyo goortuu dhammaanayo cabir afkaartaada cidna ha ku raaligelin waayo waxaa iman doonta waqti aad ka walwali doonto maxaan u cabiri waayey afkaartaydii qodobka u dambeeya saddexaad waxa weeye inaad farxadda ka raadisa meel kale amba aad farxadaada waqti kale ku xidho amba aad farxadaada shay ku xidho oo aad tiraahdo tusaale ahaan markaan lacagta caynkaayo helo ayaan farxi doonaa markaan nolosha caynkaayo ku noolaada ayaan farxi doonaa markaan cidda caynkaayo helo ayaan farxi doonaa markaan sidaa iyo sidaa noqdo ayaan farxi doonaa oo macnaheedu tahay farxadaadii inaad geed dheer ku laashay ama meel dheer aad ku tuurtay inaad raadisaana ay tahay hawl kale oo aad u adag xaqiiqatan farxadda adaa samaysan kara ilaahay ka suko ilaahay kalaamkiisa oo aad qaadato qur-aanka ood akhrido cibaadada ilaahay ood wanaajiso iyo adigu gudahaaga sidaad noloshaada u aragto ood ugu qanacsan tahay baa farxaddu ku xidhan tahay ee farxaddu maaha wax meel ku xidhan waqtina ku akhristaysan laga bilaabo maanta iska ilaali inaad farxadaada goor iyo waqti iyo cid aad ku xidho taasi oo marka aad geeriyoonayso amba noloshu ka tagto kuu keeni doonto fikir iyo wal fara badan intaan muuqaal kale ku kulmi doono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabaday ciao ciao ciao